war degdeg ah saaxiibayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xabiibul Malaayiinkii ay Soomaalidu jecleed oo haatan xanuunsanaya xanuun halis ah ayaa haleelay madaxweyne Farmaajo Ilaahay ha caafiyo Xabiibul Malaayiin sidee loo qabtay maxaa ka jira inuu ku kacay gaas calooleedkii oo uu qabay 5 sano ee uu wadanku maamulayay isla markaana xaaladiisu ay haatan halis ku jirto wararkii ugu dambeeyay xaaladda Farmaajo oo si weyn looga dayrinayo iyo hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho oo ay hareeyeen dhaqaatiir aad u fara badan si ay xaaladiisa caafimaad gurigiisa ay uga dabiibaan ayaan idin la wadaagi doonaa Ilaahay ha caafiyo Xabiibul Malaayiinkii ay ummadu jecleed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xanuunsanaya maanta waxa uu Farmaajo inooga baahan yahay waa duco oo kaliya inaynu qaybta hoose ee commentiga hal mar aynu ugu wada duceyno inuu Ilaahay markaasi caafimaad degdeg ah siiyo Xabiibul Malaayiinkii ay ummadu jecleed waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 sano ee uu wadan ku joogay hadii uu ciidamada iyo shaqaalaha dawladda uu mushaaradkoodii meel saaray xuquuqda Soomaaliyeedna si weyn u ilaalay bulshadiisa Soomaaliyeedna si weyn u garab istaagay maanta ayuu xanuunsan yahay xanuun ayuu la il daran yahay waxa uuna inooga baahan yahay inaynu u muujino garab istaag maadaama xilliga uu madaxweynuhu xanuunsado loo baahan yahay in bulshadiisa Soomaaliyeed ay duco markaas ku hareereeyaan daawade inta aanan muuqaalkan guda galin aniga oo qaybta dambe ee muuqaalkan kuugu soo bandhigi doono cadaymo rasmi ah oo ka soo baxay dhaqaatiirtii caafimaad ee xaaladda madaxweyne Farmaajo ku mashquulsan waxaan marka hore ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si saaxiibo badan uu u gaaro YouTube-kan Xaqiiq TV subscribe saaro si aad u hesho wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee markaasi arrimaha Soomaaliya iyo caalamka oo dhan inaga oo si gaar ah u lafa guri doono kooxdan maafiyada ah ee wadanka la wareegtay ee damul jadiid sida ay wadanka markaasi u xaraashanayso ayaan warbixino talantaali ah halkan idinkugu soo gudbin doona balse waxaasoo dhan waxa ka horeeya in YouTube-kan Xaqiiq TV aad subscribe saarato si aad u noqoto wehelka dhow ee Xaqiiq TV qaybta guduudan ee subscribe-ka taawo dhowr bari oo aynu maqneen hawada ayaanu si toos ah ugu soo laabanay waxaana hadda kadib si daqiiqad ah idin la socodsiin doonaa warbixinadii aad halkan kaga barateen ee joogtada markaasi ahaa qaybta hoose ee commentiga waxaan ka codsanayaa daawade Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaadkaaga markaas ha ku waariyo dambiga waalidiintaana Ilaahay ha dhaafo hadii aad qaybta hoose ee commentiga ugu duceysid inuu xanuunka Ilaahay ka dulqaado Xabiibul Malaayiinkii ay ummadu jecleed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan ku xanuunsanaya hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waad ku mahadsantahay daawade la jaanqaadkaaga madaxweynihii ugu daacadsanaa ee Soomaaliya soo mara burburkii dawladda dhexe ee kadib Maxamed Cabdullaahi Farmaajo milkiilihii dawladda shakhsigii 5 sano ee sida tooska ah u fadhiyay villa Soomaaliya iyada oo shacabka Soomaaliyeed ay raali kaga yihiin ayaa haatan xanuunsanaya waa arrin naxdin leh waa arrin qof waliba oo Soomaaliyeed uu la damqanayo in uu xanuunsanayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn ay bulshada Soomaaliyeed u jecleyd Farmaajo ayaa xaaladiisa caafimaad halis soo gashay xalay xilli dambe kadib markii uu ku kacay gaas calooleed oo uu qabay madaxweyne Farmaajo Ilaahay ha caafiyo aynu leenahay madaxweynaheena waxaan kaloo bulshada Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay garab istaag u muujiyaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xabiibul Malaayiinkii ay ummadu jecleed oo haatan ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho xalay xilli dambe ayay dhaqaatiirtu qaar waxay ku wargeliyeen in madaxweynaha markaasi loo qorsheynayo in loo qaado dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta balse madaxweyne Farmaajo oo Imaaraadka Carabta dagaal ba'an la galay xilligii uu madaxweynaha ama talada dalka hayay ayaa sheegay in magaalada Muqdisho hadii xitaa uu dhimanayo in wadankiisa hooyo uusan dhinac uga socon isla markaana quraansaar markaasi uu qaadan doono si xaaladiisa caafimaad ay u soo hagaagto Ilaahay ha caafiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la xasuustaa 2018 in sidaan oo kale markaasi gaas calooleedkan ugu dhacay xilligii uu hayay talada dalka waxa uu xilligaasi madaxweynaha u ambabaxay wadanka aynu walaalaha nahnay ee Turkiga halkaasi ayuuna markaasi si weyn xaaladiisa caafimaad isugu soo dabiibay 4 cisho oo uu ku sugnaa magaalada Ankara ee dalka Turkiga madaxweyne Farmaajo 28 bishii 7 2018 waxa uu dib ugu soo noqday gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib dhowr cisho oo uu wadankaasi Turkiga ku maqnaa si xaaladiisa caafimaad loo soo dabiibo balse hadda dhaqaatiir caafimaad ayaa soo warisay in madaxweynaha la qorsheeyay in saakay aroortii loo qaado wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta
balse farmaajo uu diiday islamarkaana uu sheegay in aysan ka jecleen xasan sheekh maxamuud oo ay isku taggo imaaraadka carabta markii uu booqday ay cuntada markaasi sun ugu soo dareen kadib markaasna madaxweynuhu uu si weyn u xanuunsaday farmaajo ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu shir jaraa'id markaasi hoygiisa uu ku qaban doono mid ka mid ah kalkaaliyaashiisa caafimaad isaga oona ka warbixin doono xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay madaxweyne farmaajo xabiibul malaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu waddanka u soo qabtay wax weyn oo ay qof bili'aadan ah uusan qarin karin waxaa la xasuustaa sidii uu u qalabeeyey ciidanka soomaaliya mushaaraadkoodana uu meel u saaray iyo shaqaalaha dowladda dhammaantoodna oo markaasi garab istaag u muujiyey haatanse madaxweynuhu waa uu xanuunsanayaa oo xaaladiisa caafimaad ayaa si weyn looga dayrinayaa ugu dambayn madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa aynu eebbaweyne uga baryeennaa in xaaladiisa caafimaad ay sidan ka soo hagaagto ilaahay ayaynu u baryeennaa waa maalin jimcaad waxaa suuragal ah inuu ilaahay markaasi ducadeenna aqbalo qof weliba oo halkan ku jirta islamarkaana muuqaalkan daawanaysa waxaan ka codsanayaa weliba si naxariis leh aan kaga dalbanayaa in madaxweyne markaasi maxamed cabdulaahi farmaajo ay duca hawada u marido waxaa suuragal ah in midkaan uu ilaahay ducadiisa aqbalo rabbi subxaanahu wa tacaalaana uu xanuunka iyo markaasi arrintan soo halakaysay maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka dulqaado dhammaanteen waxaynu leenahay ilaahay ha caafiyo maxamed cabdulaahi farmaajo xabiibul malaayiinkii ay ummadda soomaaliyeed ay jeclayd ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan haddii aad ina wehelisay muuqaalkan like saar si saaxiibo badan oo nabad iyo nolol xabiibul malaayiinkana taageerta oo muuqaalkan u gaaro meel fogna uu gaaro adiga oo qaybta subscribe-ta guduudan taabanaya si muuqaalkan uu markaasi meel fog isna uu u gaaro gambaleelkana furo gambaleelka haddii aad furato waxaad inaga caawisay in daqiiqad weliba adiga oo cabitaankaaga shiidanayo gurigaada gudihiisa uu warkanaga kugu soo dhaco subscribe youtube-kan saar xaqiiq t v mar waliba waxaynu ku soo gudbin doonaa warar xaqiiq ah oo ku salaysan markaasi waaqica markaasi jirta inaga oo aynu sidoo kale dadka uga digi doonno inay ka feejignaadaan kooxdan maafiyada ah ee waddanka la wareegtay ee damul jadiid iyo daljir oo dalka markaasi suuragal ay tahay in sidii 2016 oo kale ay waddanka xaraashtaan maadaama uu damul jadiid uu hogaamiye u yahay mid ka mid ah dadka ay Soomaalida sida weyn indhaha ugu hayso waa xasan sheekh maxamuud oo markaasi ah shakhsi si weyn u dhaliili jiray xilligii uu farmaajo waddanka joogay balse hadda ayaa la ogaan doonaa cidda roon farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud oo dadku waxay kala ogaan doonaan labadan shakhsi bal cidda markaasi roon ee waddanka wax u qaban karta waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka nabadgelyo